السلام عليكم مقعي وسهلا جامعتنا هيستا حربي نلوش كوتهاي أنيقا أيا إسكالي محالها قصديدنا waxa weeyaan laba sano ka hor ayaan heesta sameeyay heesta markaan anigu sameeyay maxaa la yiraahdaayay miraha sameeyay ayaan waxaan ula tagay miraho wax iiga kala dhiman yihiin abwaanka la yiraahdo Xuseen Abiib oo ku magac dheer maxad reeyo abwaankii markaan ula tagay abwaankii wuxuu igu yiri mirahana way ka soconayaan wuu ka helay waxaan ku waxaad igu dhiibtaa fanaanada la yiraahdo Khadra Silimo ama Yurub Genyo hayabu igu yiri fanaankii maxaa la yiraahdaa uu haleeli waayay haleel la'aan darteeda heesta anawan hayay isna uu hayay waxa dhacday maxaa la yiraahdaa in abwaankii markuu saa sameeyay uu haleeli waayay aan abwaankan kale oo Hargeysa ku socdo aan habeenada kamid oo isbarano aan dabeetana u dhiibo heestii aan ku raahdo walaalo heestan maandaabad Hargeysa ku socoto isoo saar miraheedana maxaa la yiraahdaa ku soo qoran anigu iska leeyay waxa dhacday anigu waan iska mashquulsanaa shaqooyin ma ka shaqeeyaan ku mashquulsanaa heestii ordaysa oo waxay soo gashay ay ku qoran tahay dhamo inuu abwaanka dhamo soo saaray يعني ogaanshaheeguna sidaa ma yahayn iskumaan ogeyn heestii waxa dhacday inaan markuu abwaankii yani uu soo saaray dabeetana aan abwaankii si sharaf la caawa anigoo xanaaqsan runtii laakiin waa isdejinaya aan la hadaan ku assalaamu calaykum walaalo gabadha kula hadlaysa waa gabadhii heesta ku dhiibtay ku tiri fanaaniinta igu dhiib way aad heestaydii ugu soo qortay magacaaga maxaa dhacay aad magacaaga ugu soo qortay abwaankii wuxuu igu jawaabay in heesta aniga iskale waxaan ku yiri adigu ma lihid heesta aniga iskale qoraalkii baan hayaa waana soo koobi gareynaya waan soo dhigi doonaa page-kayga qoraalkan ku wada hadalay aan heesta ku siinay uu igu lahaa abwaanad baa tahay wallahi heesta wad samaynta qanaabaan hayaa ma fahantay abwaankii already isku soo wada dub waxaan ku yiri aniga life baan soo galayaa weligeena life ma galin waan sheegi doonaa heesta inaan iska leeyahay please heestayda now sidaad magacaaga ugu qortay anigana magacayga ugu soo qoro ka tirtir magacaaga wuu diiday maxaa la yiraahdaa manuu ku soo nawaal soo dhaaf walaalo muu ku soo qorin marka heesta aniga iskale heestayda 24 saacadood gudahood haduu ku soo celin waayo dhamaan YouTube-ka waan ka tirtirayaa isagana abwaanimadiisa sharaf darra ayaa ka raaci doonta muqraati madoon weeyaan heestan anigu iska leeyahay waxa muqraatiga ah oon u diray hadda ka hor fanaanka la yiraahdo Maxamed Kaafi oo ka helay erayada oo laakiin am sorry heestu waxay qosaysay naag inay qaadabay ahayd muu qaadi kareynin waxa kale oo iga muqraatiya abwaanka la yiraahdo Xuseen Abiib oo erayada ila dhameystiray oo erayada wax iigu daray oo maxaa la yiraahdaayay igu dhiirigeliyay inaan abwaanimadeeda halka ka sii wado isagoo qof baa ku dhiirigeliya igu dhiirigeliyay inaan halka ka sii wado igu dhiirigeliyay inaan maxaa la yiraahdaayay wax sameyn karo on meel iska soo saari karo qofna xanuun baa ka keena erayada qofna maxaa la jacayl baa ka keena marka runtii aniga xanuun baa iga keenay xanuun baanan erayada u sameeyay waanan jecelaynaa ku sii waxyaabo kalena waan sameeyaa waanan hayaa heeso badan aan sameeyay laakiin heesta xor bay nolosha ku tahay 24 saacadood gudahooda hadaan kugu ceeban waayad heesteedii ku soo celin weydo hooyaday aniga imay soo qaadanay ma dheertii bay soo qaadatay isbuuta anigu miihin naag loo hanjibo burcana waan kugula dhashay yaa qurbahana waan kula joogaa xaquuqna waan leey waliba waxaan ku adeegsan doonaa xaquuqda qurbaha lagu adeegsado iyo qodobada loo raaco maxaa la yiraahdaa idinku hadda af Soomaalihan hadaan idinku sheego waxa la yiraahdaa dastuurka loo raaco ee qodobada ee Ingiriiska joogta iyo Jarmalkan joogo ayaan isku adeegsan doonaa wallahi qoraalkii iyo halkan ku qoray iyo erey 24 saacadood baan soo jeeday indhuu ooyeen la iskama naagtu markay uuraysato aad yar ilmaha afka kama dhashay way u foolataa heestan macaankeedana la iskama sameeyne waa loo ilmeeyay sababaana loo sameeyay adeer iyo xanuun qof soo maray ayaa loo sameeyay marka inta caadi iska dhigto heestayda waxaan ka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan inaad may walaalo iimu dhameystirin walaalo iga may kala dhinayn abwaan kale weeyaan abwaankan ka hadlaya waxaan ka codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan leh heestaydanadii idinkana waxaan idin ka codsanayaa inaad share gareysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hurta fiican baan idin rajeynayaa dhammaan Soomaalida waxa lagu yaqaanay qofka khaldan inay qabtaan aniga waxa caawa igu kaliftay inaan live soo galo anigoon weligay wajigayga live soo dhigin oo weligay maxaa la yiraahdaayay gabadh adaab leh gabadh maxaa la basar leh waxay sameeyay cid ay doonaysa siisa intaas oo hees oo sameeyay baa la qaadaa
heesahan sameeyay waxa qaada fanaanin jooga ma fahmaysaa laakiin maxaa la yiraahdaa ma aan jeclaan jirin ay sababtay aniga sabab ayaa igu kaliftay inaan heesaha sameeyo sababta ma aan jeclaan inay banaanka u soo baxdo laakiin am sorry dhamo ada caawa iga keenay inaad banaanka u soo saarto waan ka xumahay laakiin anna ballan waxaan kugu qaadayaa inaan bana duuka ka eeganayo oo ilaahay iga qaadaa ballan waxaan kugu qaadayaa inaan abwaannimadaada dhulka cagaha hoostooda geliyo ayaan ballan kugu qaadayaa sidaad wajigayga life u soo gelisay aad life u keentay inaan adigana abwaannimadaada dhulka geeyo ayaan ballan kugu qaadayaa ay sababtu tahay heestan anigu lahaayeen anigu sameeyay wala marantay ما فهمتي خير بدن بندير لجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته